بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. marka hore waxaan salaamayaa dhammaan walaalaha Soomaaliyeed muslimiinta ah meel walbo oo aad joogtaan caalamka. khaasatan waxaan salaamayaa si gaar ah u salaamayaa walaalaha Soomaaliyeed ee jooga ama ku nool waqooyiga America. sidaan horay u sheegay, waxaan rabaa caawa horta shaahiina soo qaata, fariista, arrin baan rabaa inaan ka hadlo aada xasaasi u ah oo dad badan ay dhinacyada ka marmareen ama ka gabadeen inay ka hadlaan. waxaa laga yaabaa dadka intooda aanan fahmaynin meesha aan u socdo inay ii arki doonaan qof iska hadlaaya ama wareersan, laakiin dadka intiisa wax fahmaysa waxay ogaan doonaan ama u muuqan doonta meesha aan u socdo. waxaan marka hore ka araaranayaa, aan rabaa inaan ka araarto ama ka cudur daarto arrintan aan rabo inaan ka hadlo caawa. qof shakhsi ah kuma socoto, guruub khaas ah kuma socoto, waa dan guud. markii dan guud laga hadlayana qof looga gabbanayo ma jirto, qof lagu ixtiraamayo ma jirto. qof walbana fikirkiisa xor ayuu u yahay, wuuna ka hadli karaa. wax walba oo caawa halkan aan ka sheegi doono ma aha inay igu waafaqdaan. wax walba oo caawa halkan ka sheegi doono ma aha inaad ku qanacdaan, laakiin keliya waxaa idinka rabaa inaad inta dhegaysataan, aqligiinna isticmaashaan, iidan fiirin hadalka qofku ka imaanayo. ha ku mashquulina hadalka qofka uu ka soo baxayo, laakiin hadalka soo baxaya ama kalaamka aan ku hadli doono iyo waxa aan sheegi doono factiskooda raadiya, kana warbixiya insha allahu tacaala. sidaan hore u idhi, cidna toos uguma socdo, cidna weerar kuma ihi. caawa arrintan aan ka hadlayo ee xasaasiga ah ee ku saabsan masaajideenna Soomaaliyeed. masaajidda ilaah baa iska leh. horta kow, ilaah baa iska leh, waa guri ilaahay. guri ilaahayna in wax lagu kordhiyo ma ogiyo wax lagama qaado. laakiin masaajidda waqooyiga America ku yaalla way ka duwan yihiin masaajidda waddankeennii ama meelo kale oo caalamka ku yaalla. waxaan ka codsanayaa walaalaha in videogan ay sheergarayaan, iyadoo uu noqon doono viral. waxyaabo badan oo xasaasi ah, qodobo badan oo xasaasi ah oo masaajideenna ku saabsanna aan uga hadli doono insha allahu tacaala. qodobada aan uga hadli doono waxaa ka mid ah, aan rabo inaan dul maro, iyadoo aa og tihiin aniga waxaan ahay khabiir. qofkana waxaa fiican inuu ka hadlo waxa uu og yahay. arrintan aan ka hadlayo waa arrin aan xoogogaal u ahay, masaajiddana waan ka soo shaqeeyey, qaybna waan ka ahaa. waxaan rabaa marka inaan qodobo dul maro, waan tirinayaa insha allahu tacaala. markaas kadib ayaan hal u dul istaagi doonaa si aad u sii ogaataan waxa aan rabo inaan caawa halkan uga hadlo.
kow waxaan rabaa inaan ka hadlo taariikhda masaajidda waqooyiga America sida ay u soo bilowdeen, doorka culimmadeenna barakaysan ay ku leeyihiin masaajidda, marxaladihii kala duwanaa ee masaajidda soo mareen, qaabka maamulka masaajidda loo dhiso markii aan waddankan joogno, qaab sidee ayaa loo dhisaa, sidee qofka maamulka masaajidka raba inuu ka mid noqdo, sidee ayaan hadda ku xulanaa oo masaajidka qofka looga dhigaa inuu maamulkiisa ka mid noqdo. masaajidda markay muddo furnaayeen sanado kadib maxaa dhacay? shacabka Soomaaliyeed ee masaajidda dhistay maxay masaajidda uga aamusan yihiin oo uga xishoonayaan ayagoo ay u muuqato qaladaadka tirada badan ee maamulada masaajidda ay ku dhacayaan? dadka u khidmeeya masaajidda ama ka shaqeeya masaajidda dheef ma ku qabaan? waa su'aalo u baahan in laga jawaabo. cudurka qabyaaladda eena dishay ee halkanna keenay, waddankii naga soo raray, saameyn intee la eg ayuu masaajidda ku leeyahay oo qodobka caawa aan dul istaagi doono. culimmada mar kasta oo masaajid lasoo hadal qaado waxaan dhahnaa war masaajidka ilaahay yaan laga hadlin. masaajidka ilaahay haddii la sheego culimmadana waa in la sheego, soo maa? marka culimmada door intee la eg ayay masaajidda ku leeyihiin? awood intee la eg ayay ku leeyihiin? waa su-aasha ama qodobka aan dul istaagi doono insha allahu tacaala. shaaha lasoo kuleysta caawo. masaajidda maxay dhaqaale la'aan u yihiin oo biilasha ay mar walba ula rafanayaan? ayada naftirkeeda waa dul istaagi doonaa insha allahu tacaala, ayadoo weliba ay dadweynuhu tuhun ka qabaan in masaajidda dhaqaalahooda la lunsado, masaajiddana ay biilasha iska bixin la yihiin. maxaa keenay? imaamyada ama culimmada maxay maamulada masaajidda ugu jiraan? ayadana waan ka hadli doonaa insha allahu tacaala. warbixinadaas dhan ayaan dul istaagi doonaa hadduu ilaah yiraahdo. haddaba markaan intaas ka soo hadlo insha allah, arrimaha noocaas ah maadaama aan aniga muddo ku soo jiray masaajidda, soona arkay khilaafaadka iyo dhibaatooyinka masaajidda ka dhaca, sidee looga bixi karaa? aniga fikirkeyga ayaan soo bandhigi doonaa insha allahu tacaala. masaajidda kale ee aan Soomaalida maamulin ee qurbaha waddankan ku yaala sidee u dhaqmaan? sidee maamuladooda iyo systemkooda siduu u shaqeeyaa? maxaase annaga naga dibdhigay oo mar walba masaajideennii meeshii 10 sano ka hor ay taagnaayeen ay u taagan yihiin? qodobadaas oo dhan ayaan caawa dul istaagi doonaa insha allahu tacaala. arrintan inaan ka hadlo aniga oo ku hadlaya magaca dadweynaha majoritygooda, dadka shacabka majoritygooda insha allahu tacaala. dad badan oo shacab ah, tusaale xalay waxaan facebookga yara dhigay qodobo yar oo ku saabsan mowduucan. commenteska ugu badnaa ayaa laga bixiyey. taa waxay ku tusaysaa dadka inay danaynayaan, laakiin dadkii afkaa la hayaa. caawa aniga hadda waan ka hadlayaa hadduu ilaah yiraahdo. markaan ka hadlo iska dhaafee shalay intii reed aan messageka qoray, telefoonada saasay igu soo waasheen. wanimo masaajidka ilaahay maxaa ka rabtaa? masaajidka ilaahay ma iska daysid? masaajidda ilaahay ee waqooyiga America ku yaala ma aha keliya in 5 waqti lagu tukado, ee waa community center. waxay u baahan yihiin inay qabtaan arrimo badan oo bulshada saameyn badan ku leh. inteena badan
haddaan su-aalihii iyo qodobadii aan usoo laabto bear with me ila jooga insha allahu tacaala. waxaan ka cudur daaranayaa inaanan warbixinta maadaama aan soo diyaariyey inaanan ka jawaabi karin commentska aad soo qortaan, laakiin qof allaale wixii fikirkiisa ah wuu kusoo qori doonaa insha allahu tacaala. taariikhda masaajidda ayaan ka bilaabayaa insha allah. dad muslimiinaan nahay runtii. nabigeena calayhi salaatu wassalaam markuu meel imaado, markuu ma aragtay maka ay ka soo haajireen asxaabtii iyo nabiga calayhi salaatu wassalaam ay madiine imaadeen, waxa ugu horreeyey ay sameeyeen wuxuu ahaa nabiga uu amray masaajid in la dhiso. ilaahay khayr ha siiyo, waxaa booskii ambiyada taagan oo waratadii ah culummada. markii la yimid marka oo la soo qaxay sagaashameeyadii ayaa si aad ah u soo yaacnay, doontaa nala soo jabtay annagoon ka fikiraynin meeshaan u soconno, waan soo yaacnay. markaan nimid isla markiiba waxaa bilowday dadaal ah, war bad baan soo galnay, waa wareey, baddaan aan soo galnay sideen uga badbaadi karnaa. fikir laysku darsaday oo bulshada markaa dadkii joogay ahaa ayaa ka qayb qaatay. waxaa la aasaasay masaajiddii ayadoo laga soo bilaabay in guryo la ijaarto, meelo yaryar la ijaarto, ilaa bulshadu ay horumar gaarto, la shaqaysto. markaa kadibna la bilaabay dhaqaale aruurin iyo in laysku imaado oo markaa meel la wada gato. kuma iman masaajidda inay dhismaan, kuma iman 4 qof ama 5 qof ee maamulaysa, ee waxay ku timid isku tag iyo gacan isqabsasho shacabka muslimiinta ee Soomaaliyeed, ayadoo weliba diinta islaamka markaan nimid Maraykanku aad ugu liitay, ee muslimiinta kale madaxa foorinayeen. annaga ayaa nimid oo markaa si bareer ah oo aan gabasho lahayn u soo bandhignay diinteennii macaaneed ee islaamka. niyad wanaag aad u fiican ayay masaajidda ku aasaasmeen oo culimmada looga dambeeyey, culimmada ay hoggaanka hayeen, culimmada lagu ixtiraamayay. marxalado kala duwan oo masaajidka soo maray. marka masaajidda arrimaha qoyska laga xalliyaa, dadka dhibaataysana laga caawin karaa. maxay salaada lagu ogayaa, howlo badan ayuu qabanayaa booskii community centerka. waxaa caawa la isweydiinayaa, war ninkan muxuu caawa masaajidda ugu qamaamsan yahay ama uga hadli la'yahay community centerska? masaajidda waxaa uga hadlayaa community centerska ama meelaha loo yaqaano communitiyada. waa shakhsiyaad kooban ayaa soo helay ama ku dadaalay dhaqaalaha ay ku shaqeeyaan ee bulshada wax ugu qabtaanna waa dhaqaalo guud oo ay dowladda ka soo qaataan. laakiin masaajiddu waxay ku shaqeeyaan oo wax ku qabtaan oo dadka ugu adeegaan, dadka inay ugu khidmeeyaan ay tahay ay ku furan yihiin, waa jeebka iyo dhaqaalaha dadka muslimiinta ah ee dhistay. waa tahay haddaba masaajidka markii la sameeyey waxaa marar badan lagu soo celceliyaa, maxaa masaajidka looga hadlayaa, maamulkiisa maxaa looga hadlayaa? masaajidka ma aha wax laga hadlaya. masaajidku waa guri ilaahay, in wax lagu daro ma ogiyey wax lagama qaado. waana in la taageero, waa in la dhiso. saasayna ummadda ku dhisteen. ummaddana waxay u dhisteen inay wax intifaac ka helaan oo ay ka faa'iidaan, ee uma aysan dhisan in masaajiddii laga xiriirto. marka masaajidda waddankan waxaa loo dhisaa qaab marka system la mid ah ama u dhow qaabka kaniisadaha, maadaama diinta islaamka ay ku yar tahay waddankan aan nimid. waxaa loo dhisaa in qaab sida kaniisadaha oo kale. waxaa loo sameeyaa xubno
la yiraahdo board of trustees ama board of directors ayaa la sameeyaa. annaga marka xubnahaaseeto oo masaajideenna noo maamulaya sidee lagu sameeyey waagii hore oo niyadda ay wanaagsaneyd, niyadda ay fiicneed, sidee lagu dhisay. sidee qofka uu qualify ugu noqon karaa inuu noqdo qofka mas-uulka nooga noqonaya masaajidka ama noo maamulaya? intee la eg ayuu maamulayaa? qofkaas maamulaya masaajidka ma asagaa iska leh mise ummadda ayuu masaajidka ka dhexeeyaa? meesha wax ka qurmeen oo dhibaatada ka taagan tahayna waa meeshaas. qofku wuxuu qualify ugu noqonayaa hadba sida loo qoro dastuurka markaa masaajidka u degan. dadaalaa la soo sameeyey, masaajiddu way soo socdeen, waa la soo waday, culimo iyo rag kaloo akhyaara ayaa soo waday, way soo dadaaleen, waxay keeneen meesha maanta la joogo. markii la yimid halkan aan joogno oo systemkii boardka iyo system maaragtay iska aad u liita runtii, oo qaabka lagu soo dooranayo aan taaban doono hadduu ilaahay yidhaahdo. qaabka masaajidda soomaalida systemkiisa lagu soo doorto anigaa lay soo doortay, aniga ayaa masaajidka qayb ka ahaa. systemkii iyo qaabkii wax lagu waday oo aniga aan qaybta ka ahaa ma saxsanaa? maya, ma saxsanin. ma sixi karnaa? haa, waa sixi karnaa. qaladaadka wax laga barto ayaa noloshuna bartay markaan joogno, aan weynaano, aan noolaano. marka caawa waxaan rabaa keliya inaan iftiimiyo qaladaadkii aan ku soo dhacnay iyo sida wax looga bedeli karo. in boardka aa ka mid noqoto ama dadka maamulaya masaajidka aa ka mid noqoto oo ah dadka masaajidka noogu qoran oo ummadda inteeda kale xagga sharciga ugu qoran, waa dad waagii hore waxaa soo xuli jiray culimmada ayaa soo xuli jirtay. aniga waagii masaajidka boardkiisa laygu darayey, culimaa ii timid, culimaa i weydiisay inaan mas-uuliyadda anoo iska khidmeynaya oo volunteerly inaan aniga si volunteerly ah u qaado howsha ayada ah. anoo dareensan inaan masaajidka aniga lahayn, ummaddana uu ka dhexeeyo, laakiin ummadda inteeda kale aan wakiil ugu ahay. laakiin shacab ima dooran. I was selected, not elected. waa laysoo xulay laakiin layma soo dooran. shacabka dhan inay raalli iga ahaayeen aniga iyo ragga ila mid ah ma aanan ogeyn. qaabka aan ku joognayna wuxuu ahaa qaab un rag akhyaaroo magaalada jooga saa loo soo qabtay. sanado kadib maxaa dhacay? waa markii hore saasay niyadda u wanaagsanayd. sanado kadib waxaa dhacay howshii inay systemka iyo nidaamka iyo qaabka masaajidda boardkooda loo soo xulo inay yara fool xumaatay. wax la qarinaya caawa ma jirto. shacabkana xaq ayay u leeyihiin inay ogaadaan qaabka masaajidda loo maareeyo. waxaa lay saari doonaa tuka cambaarlah layga dhigi doonaa, laakiin waxa aan sheegayo qof walba xaqiiqdeeda ayuu salka u geli karaa. waxaan aniga soo joogay ama fadhiyey ayadoo ragga akhyaarta ah, culimmada la wada fadhiyo, in masaajidka boardkiisa shacabka dadweynaha intooda kale waxba kama oga, wax ay ka ogyihiin ma leh. in masaajidka boardkiisa uu qof ama ka tago ama uun si wax noqdaan ama qofkii uu waddanka ka tago, wallaahi waxaa la raadinayaa qofkaas qof qoladiisi ah si loogu bedelo booskaas. hadalkayga sifac u dhegeysta. qof qolada uu ka yimid ah si loogu bedelo booska. hadday timaado masaajidkii in qabyaalo dadka lagu kala bedelo ama qof markuu ka taga boardka qof kale ayadoo aan u imaan doono in nafci lagu qabay in kale, laakiin arrimaha noocaas ah
maamulka masaajidda way soo mareen ilaa haddana way ka jiraan. shacabka maamulka sidaasuu ku dhisan yahay, ma laha xad, ma laha maxay ahayd waqti go-an oo ay meesha joogayaan iyo waqti ay ka tegayaan. ninka oo meesha wuxuu ku fadhiyaa 4.5 marka kaaleba adiga ka dhaqaaji. caawo sir baa fakatay, haye wax badan oo laga aamusnaa waa in laga hadlo oo la sheego. shacabka maxaa aamusiyey marka? maxay shacabka la aamusan yihiin ayadoo og yihiin maamulada masaajidda in wax ka qaldan yihiin, qaabka iyo systemka ay ku socdaan ay wax ka qaldan yihiin? maxaa shacabka aamusiyey oo ay la hadli la'yihiin? shacabka waxaa aamusiyey qofkii shacab ah oo wax sheega, qofkii shacab ah oo wax sheega oo dhaha maxay ahayd masaajidka sidaas iyo sidaas, afkaa la goosanaya. qofka maamulka masaajidka jooga waxaa u malaysaa masaajidka inuu asaga leeyahay oo ummadda inteeda kale uu ka xigo, ummadda inteeda kalena aysan ka hadli karin. marka haddii arrintu ay sidaa tahay oo shacabka aysan hadli karin, in shacabka loo hadlo way mudan yihiin. waqtigii la aamusnaan lahaa oo la xishoon lahaa oo afka layska qabsan lahaa waa la soo dhaafay. waxaa la joogaa waqtigii isbeddelka iyo horumarka iyo accountability-ga in lays xisaabiyo. sidaan soo sheegay, qabyaaladdu saameyn ayay ku leedahay masaajidda aad u tiro badan. runtii masaajidda qaarkood, aniga intaan ka warqabo, masaajidka aniga ka mid ahaa, boorkiisa ka mid ahaa, intaasoo qof ma dhahaayo qof walba position walba oo qofka uu joogay markii laga bedelo ama qof kale uu buuxinayo ma aha exactly in position walba lagu buuxiyey, laakiin intaasoo xubnood ayaa waxaa lala sugay ama lagu bedelay ayadoo la fiirinayo qofkaas qoladiisii hala soo fariisiyo. wax faa'iido laga helayana meesha ma jirto. ragga masaajidda ka shaqeeya nafci kuma qabaan, dhib unbay ku qabaan, dhib ayay ku qabaan. marka dhibka ay ku qabaan oo ah mas-uuliyaddaas iyo shaqadaas oo zaa'idka ah, iyo in laga yaabo in lagu caayo, laga yaabo in lagu tuhmo, laga yaabo in wax laga sheego, haddana qofkii waa isku dhejinaya masaajidka, lagama furfuri karo. wuxuu leeyahay masaajidkii aniga cidaan ahayn, haddii aniga aan ka tago masaajidka wuu kala daadanaya, haddaan aniga ka tago masaajidka waa u dhammaanaysaa. masaajidka qofka ka shaqeeya malaha ee shacabka ayuu ka dhexeeya. shacabka marka saameyn intee la eg ayay ku leeyihiin masaajidka? 0. wax saameyn ah kuma laha. hal maray saameyn ku leeyihiin markii lacag laga rabo bes. markii lacag laga rabo shacabka waa shacab, waxaa leeyahay maasha allah lacagaa laydinka rabaa. masaajidda inay shiid ahaadaan oo lacag la-aan hayso oo biilasha iska bixin waayaan oo jimco walba la istaago la dhaho intaasoo lacagaa naga dhiman, biilka waa iska bixin la'nahay, maxaa keenay? waxa keenay ayadana waa ka hadli doonaa insha allahu tacaala. shacabku waxba kuma laha masaajidda, hadal kuma laha. aniga hadda shacab baan ahay, masaajiddii maamulkooda hadda kuma jiro. waxaa laga yaabaa dadka inay dhahaan waaga adiga ugu jirtay maxaad wax uga qaban weysa arrimahan. kommentiyada lasoo qoraya waxaa ka mid ahaa geeljire, maxay ahayd maamahayada ma aqaan, laakiin geeljire hoos bay wax u gogoyaan, hoos baa wax laysugu dhigaa. waa dhammaatay arrintii wax hoos laysugu dhigay. waxaan hoos usoo dhigi karna waa usoo dhignay, waxaan soo dabooli karna waa soo daboolnay, waxaan soo qarin karna waa soo qarinay. masaajidda qolo gaar ah uma xirnaan doonaan insha allahu tacaala. shacabkuna wuu baraarugay, wuuna baraarugayaa insha allah. culimmadii masaajidda sababta u ahaa ee masaajidda soo dhisay, ee daraaddood loo xirxiray xabsi ugu jiraan, daraaddood loo musaafuriyey, daraaddood dhibaatada loo gaarsiiyey,
wallaahi caawa badankood waxay ka yihiin marti ayay masaajidda ka yihiin. idinku waxaa laga yaabaa inaad iska aragtaan sheekh cimaamad cad iska wato oo hoos isaga foorarsanoo masaajidka tujinayo oo khudbada akhrinayo iska socdo, laakiin sheekha waa loo taliyaa, rag baa u taliya. markay nafta u yaabeen culimmadii waxay soo galeen oo danta ku qasabtay inay boorarkii galaan si hanjabaado badan oo u yimid in imaamnimadoodii faraha lala soo galo, ama imaamnimadoodii la dhaho imaam masaajidka kama sii ahaanaysid. markaas ayay waxay bilaabeen naftu orod bay kugu aamintaaye bal boorka masaajidka board of trusteega gal. taasna waa conflict of interest. ninkii imaamka ahaa oo la rabay inuu ummadda hogaamiyo, diinta ku hogaamiyo, ugu sarreeyo, haddii boorkii uu galay waxaa u geysay waa cabsi uu u cabsanayo shaqadiisa ama mas-uuliyaddii uu hayay ee imaamnimo. halkaa waxaa ka muuqda ixtiraam darro aad u tiro badan. aniga weligay culimmada waa garab taaganahay. waxaa laga yaaba caawa inaad dhahda culimmadii iyo masaajidda ninkan caawa wax ka sheegaya. culimmada masaajidda waa ku dilman yihiin, laakiin way aamusan yihiin, way xishoonayaan. ayaga naftirkooda annaga u hadlayna. masaajidka ummaddu door weyn ayuu ka ciyaaraa. masaajidka muxuu marka dhaqaale la'aan la yahay? masaajiddu maxay dhaqaale la'aan la yihiin? dadweynuhuna ay tuhun u qabaan, ay leeyihiin masaajidka lacag unbaa la aruursadaa. lacagtii masaajidka laga aruursadana ragga joogaa jeebka ku shubta. arrintaas sax ma ah. ragga jooga masaajidda saan hore u sheegay dhib unbay ku qabaan. ninkii lacag masaajid jeeb ku shubtana asaga ilaahay la xisaabtamaya. laakiin arrintaa ayada ah ma jirto, meel ay ka dhacdayna ma aanan arag. runtii waa arrin dadka masaajidda jooga xadgudub lagu samaynayo, lagana yaabo in ay iska tahay wax un layska yiri. laakiin masaajidka inuu dhaqaale la'aan noqdo waxaa keenay shacabkii masaajidka taageeri lahaa oo u hagarbixi lahaa oo mar walba garab taagnaan lahaa waa laga wada ceeriyey. dumarkii dahabka masaajidka u furay ma joogaan masaajidda badankood intaan aniga ka warqabo. maalin kasta markaa la hadashid way cabaadayaan. dhallinyaradii masaajidkii wuxuu ku soo koobmay in 5 waqti lagu tukado. masaajidda waqooyiga Amerikana ma aha sidaas, way ka wen yihiin. marka masaajiddu dhaqaale la'aan inay noqdaan ma ah. waxay dhaqaale la'aan u yihiin masaajidda waa maamul xumo. maamulka oo xun oo aanan strategically ka fikirin sida masaajidda dhaqaale loogu samayn lahaa, oo maamada dhibaataysan ee korontada laga goosan rabo ay u aadaysa kaniisadaha, u aadaysa inay korontada ka soo qaadata biilka. waxay ahayd masaajidda inay lacag siiyaan oo masaajidda ay korontada ka bixiyaan. masaajidku waa community center. masaajidka North America ku yaala waa inuu ummadda u qabtaa wax walba ay u baahan yihiin. ma aha dadka inay marti ka noqdaan. waxaa arkaysaa qofkii masaajidka maamulaya oo maanta dhan la raadinayo, ummadda ay raadinayso. arrintan muddan ka aamusnayn, ummaddu ma aamusi karto. videogaana wuxuu noqonayaa viral. hore u sheer gareeya. masaajidka marka dhaqaale la'aan ma noqon karo haddii ummaddu ay qayb ka noqoto, shacabku ay qayb ka noqdaan. masaajidda dhaqaale la'aan ma noqonayaan. laakiin waxay dhaqaale la'aan la yihiin dadkii ayaa u hagarbaxaynin. markii system nidaam habaysan oo dhaqaale u create gareyn kara ama masaajidda dhaqaale u samayn kara, surplus lacag inay masaajidda meel u taallo, masaajiddeena inay lacag meel u taallo oo aysan dhaqaale xumo haynin oo jimco walba loo istaagin, waa u baahannahay inaan gaarno. marka si aan heerkaas u gaarno waa inaan shacabka qayb ka soo dhigno masaajidda. shacabka hadda awood uu ku leeyahay masaajidda ma jirto. marka masaajiddeena systemka sidee ayay u dhisan yihiin ayaan dib ugu noqonayaa insha allahu tacaala.
sida aan aniga ila tahay iyo fikirkaygana waan ku soo qatimi doonaa insha allahu tacaala. maamulka masaajidka oo ah meesha wax ka qurmeen ama meesha ay arrini ka kala socon laadahay, masaajidda badankood qaabka ay ku shaqeeyaan transparency ma jiro, wax cad. masaajidku waa non profit, masaajidka sidiisaba waa non profit, tax exempt, wax canshuur ah dowladda kama qaado. maadaama uu saas yahay, qof walba oo donor ah oo masaajidka dollar siiya wuxuu xaq u leeyahay inuu ogaado xafiiska intuu tago, xisaabta intuu tago, uu dhaho masaajidka waxaan u baahannahay inaan aragno dhaqaalaha soo gala, dhaqaalaha ka baxa, dhaqaalihii aan bixinay maxaad ku samayseen, ayuu xaq u leeyahay. dadkeenna arrintaa way ka xishoonayaan, waxay leeyihin war meesha waa masaajid ilaahayna maaragtay lama taataabto, hanugu taataabanin. masaajidka ilaahay horumar baan la rabnaa. masaajidka ilaahay waxaan rabnaa inuu lacag badan u taalo. masaajidka ilaahay waxaan rabnaa meesha uu hadda joogo inuu ka dhaqaaqo. masaajidka ilaahay waxaan u rabnaa in aan la kala xigsan oo ummaddu uu ka dhaxeeyo. masaajidka ilaahay waxaan la rabnaa in ummaddu ay u sinaato. boardka masaajidka qaab wuxuu u dhisan yahay board of trustee, dad markaa lagu aaminayo masaajidkii inay ku qornaadaan boardka, oo laakiin cidda soo dooratay iyo meeshay ka imaadeen in la ogaado ay tahay, oo aanu maaragtay arrintii wixii lagu soo mooday waa lagu soo mooday. we have to be clear, wixii lagu soo mooday waa lagu soo mooday, ama 4.5 hala dhaho, ama hala sooma magacaabo, ama culimmada ha soo maaragtay rag akhyaara magaalada ha ka soo qabtaan, waa lagu soo mooday. laakiin hadda waxaan rabnaa inaan level kale masaajideenna u qaadno, oo ah levelkii aan joognay mid ka fiican oo ka horumarsan, oo la qabsan kara ama waxtar badan u leh jiilka soo socda. laakiin haddaan hal meel iska taagnaano oo meeshii un maanta dhan aan ku laalaabanno, mar kasta waxaa imaanaysa isqabsi. waxaa laga yaabaa caawa hadalkayga inaa u aragtaan inaan masaajidda maxay ahayd danka leeyahay. war runta idiin sheego, masaajidda inaan ka shaqeeyo waa barako. in masaajidda laga shaqeeyo waa barako, waa wax fiican. laakiin wallahi waa ka reestay, inaan been idiin sheegin. waxaa uga reestay maanta dhan xan iyo iska daba wareeg iyo isjijiitan iyo buuq iyo iska qabsi, iyo maanta dhan shacabkii masaajidda dhistay oo maanta dhan wax laga qarinayo, oo aan warbixin la siinin, oo masaajidkii ay dhisteen rag gooni ah ee habeen walbo ka shirayaan, ayadoo magaaladii uu masaajidka ku dhex yaalay, oo laga yaabo inay 7 qof ka taliso. 7 qof waxa ay magaaladii uga hadlayaan, oo dhaqaalaheedii iyo systemkeedii iyo nidaamkeedii aad si bareer ah u arki karto. waxaan rabnaa inaan gaarno level ah masaajidii kale oo nala midka ahaa. boardka sidiisaba waa volunteer, board of directorska waa volunteer. masaajidka qaabka u dhisan waxaa waye imaam, aniga fikirkayga imaam oo ugu sarreeya oo diinta noo hogaamiya. meeshu waa meel diin, asalkeedana waa meel diin ah, lagu cibaadaysto. cibaadada waxaa ka mid ah ummadda in loo khidmeeyo, in lagu tukado, in meydka aan ku dhaqanno, in dhallinyarada aan ku ilaashanno, in haweenka aan ku ilaashanno, wax walbo aan qabsan karno inaan ku qabsanno. xagga hadday noqoto bulshada aan la nool nahay, isdhexgalkeeda, iyo inaan bulshada maxay ahayd ogaano, inaan bulshada aan la degannahay nabadgelyo kula noolaano, inaan bulshada aan la degannahay xiriiro la sameyno, inaan masaajidkii isku xirno bulshada aan la degannahay, inaan dacwada ka fidinno. macnaha waxaasoo dhan masaajidku inuu qabto. marka waxaas dhan waxaa oday u ah aniga fikirkayga, maadaama ay waxaas dhan dallada diinta hoos imaanayaan. insha allahu tacaala imaamyada ama culimmada oo ka madax bannaan maamulka, kana awood badan. sidee culimmada maamulka uga awood badnaanayaan? waa su-aasha la isweydiinayo. laga yaaba dadka inay hadda isweydiiyaan, sidee culimmada ee awooddooda waxaa awood siinaya culimmada diinta lagu
boardka layskama sameynayo, waxaa lagu sameynayaa nidaam iyo system. marka masaajidku waa inuu noqdaa ama la qabsadaa, masaajideenna waa inay la qabsadaan masaajidda systemka waqooyiga America iyo masaajidii naga soo horeeyay. bulshooyinka naga soo horeeyay masaajidooda marka sidee u dhisan yihiin? waxay u dhisan yihiin members, xubno. wadaadada culimada naftirkooda caawa hadalkan aan sheegayo way ka cabsanayaan. waxay leeyihiin haddii members la sameeyo oo xubno la sameeyo, xubnaha yaa waay shacabka waay, shacabkii masaajidka dhisay ayaa members noqonaya. members iskama noqonaysid inaa inta iska imaata aad dhahda masaajidka member ka noqonaya, wax aqli ah ma sameynayso. memberka waxaa ku jira oo la socda nidaam iyo system habaysan oo aad ku noqonayso xubin masaajidka ka tirsan, awoodna ku leh. haddaan si kale idin tuso golihii baarlamaanka. memberka marka waa membership masaajidka. waxaad ku gelaysaa membershipka inaad noqoto $1 a day, $1 ayaad maalinka membership ku noqonaysaa, $30 bishii. marka membershipkaas waa open, wuxuu u furan yahay qof walba oo muslim ah oo Soomaali ah, maadaama masaajidii weli ay kala qaybsan yihiin oo qolo walba qoomiyad walba masaajid farto. aniga masaajidka aan ka hadlaayo, masaajidda aan ka hadlaayo waa masaajideenna aan annaga Soomaali ahaan si gooni u haysano oo dhaqankeenna iyo diinteenna iyo waxeenna aan ku ilaashano, maadaama ummadaha kale aan ka duwannahay, luqad ahaanna uga duwannahay. ummad kasto ceebna ma aha, ummad kasto masaajid gooni ay leedahay, laakiin masaajidooda system iyo nidaam ay ku socdaan. marka annaga dhibaatadana haysata, masaajideenna haysata waa nidaam darro. nidaamkii wuxuu ku soo koobmay 7 nin ama 5 nin oo si maaragtay laga yaabo loogu soo magacaabay meesha maaragtay niyad wanaag ah, ama 4.5 ku soo galay, ama un si ku soo galay meesha ku fadhiya. ma laga kicin kara marka meesha iska fadhinayo, wuxuu ku leeyahay masaajidka ana haddaan ka tago kala daadanayo. marka waxaan sameynaynaa system ah oo rabnaa dadka inaan ku baraarujino. wax cusub ma aha, ani hadda caawa wax cusub idima wado, wax cusub idima keenayay. laakiin masaajidda kale ee waddankan nooga soo horreeyey sidee ayay horumar ku gaareen, dhaqaale ku yeesheen? waxaa laga yaabaa maamo dhibaataysan inay wallaahi maamo dhibaataysan oo magaalada Seattle masaajidka Abubakar oo halkan ku yaala oo jimcihii dhahaya biilkii naga go'ay, waxaan u baahanahay $10,000 in la siiyo. maxay ahayd in maamo dhibaataysan oo korontada ka go'day haddii albaabku u istaagto uu masaajidka ka bixin karin. marka ay baxdo Redmond masaajid ku yaala intay aado ay dhahdo korontadii laga goostay, korontada la siiyo. ma aha masaajidka Redmond inuu naga fiican yahay, annaga ka fiican, ka jameeca badan, ka diin badan, laakiin diinteenna macaaneed ee nidaamkana bartay ayaa nidaamkii iyo systemkii ayaan ka cabsanaynaa inaan u soo bandhigno dadka masaajidda jooga. marka qaabka aan u sameynayno ama qaabka ay ku shaqeeyaan masaajiddaas waxaa weeye dadka dadweynaha guud maalin kasta inta lagu soo hor istaagi lahaa, jimco walba inta lagu soo hor istaagay, inta lagu dhihi lahaa war yaa 1,000 bixin kara, yaa 500 bixin kara, yaa culimmada. waxaan ogahay aniga culimmada waxaan la leeyahay cilaaqaad aad u dhow. culimmada kulligood maxay ahayd videogan way fiirsan doonaan. fundraisingka ama lacag aruurinta dhib ayuu ku yahay, kulligood way dhibsadaan. maalinkii la dhaho maanta lacaga la aruurinayaa, xogaa waxaa ka dareemaysaa wejigooda karaahiyada ka muuqata. so culimmadana bareegaan siinaynaa. walaalahan masaajidda hadda jooga oo isku dhejinaya maxay ahayd oo dhahaya maxay ahayd masaajidka aniga haddaan ka tago wuu kala daadanaya, ayagana bareegaan siinaynaa. marka waxaan keenaynaa system iyo nidaam. arrintaana lama joojinayo. shacabka Soomaaliyeed ee muslimiinta waxaa la rabaa inay ku baraarugaan. waxaa badatay masaajid ayaa laga hadlin, waxaa badatay masaajidka wax laga sheegin, laakiin qaabka iyo nidaamka dhageyso, markaas go'aanka adiga qaado. dadweynaha ayaa members noqonaya. aniga adiga kulligeen masaajidkii waa ka wada hadalnaa. hadal yaroo aan soo qoray
intaasoo commenta laga soo qoray been yaa laisku sheegi masaajidka arrimihiisa mar walba waa dul taaganaa marka si xanta u yaraato si waxaan u wada hadlaynaa waadix ah oo cad oo run ah oo aan gabasho lahayn ragga masaajidda jooga waxaan leeyahay nidaamka iyo qaabka isbeddelka aan rabno inaan samayno khaasatan magaalada aniga hadda aan joogo masaajidkii aniga aan ka tirsanaa oo ah masaajidkii ummadda ay fangaraysay barnaamijyo badanaa ka socda howlo badanaa ka socda projectiyo badan oo ummadda aysan war badan u haynin xogagaal u ahayn oo ku kooban ragga masaajidka weli waxaan ogahay ragga maamulka dhexdooda qaarna inay informationka ay hayaan qaarna aysan haynin ayaga dhexdooda informationka uu kala waxaas waxaa keenaya transparency la'aan iyo wix inaan la caddaynin waa u soo geli doonaa abubakar siyaaral iyo waxa loo baahan yahay isbeddelo in laga soo laakiin hadda si guud ayaan u hadlaya insha allah memberska marka waa baadhiga guud ee dadweynaha memberska laba faa'iiday leeyihiin faa'iidada koowaad culimmadii baa wareeg la siinayaa jimco walba inay soo istaagaan ma dhahayaan waryaa wax bixinayo memberaa rabtaa inaad noqotid waxaa rabtaa masaajidkaagii iyo horumarkiisii iyo ummaddii iyo khidmadii ilaa dadku markay iskaashadaan isku imaadaan xoog ayay yeelanayaan masaajiddaasna waxaan ku dhisnay isku imaatin iyo iskaashi iyo xoog ayaan ku dhisnay marka members $30 bishii sanadkii $376 haddii marka aan dhahno memberska 200 oo member masaajidda badankood waxay leeyihiin 200 300 annaga maasha allah ilaahna badiyey muslimiinta ugu badan soomaalidaan nahay 200 oo ama 300 iska dheh 300 haddii qofkii uu $30 bixiyo bishii waa 9,000 bishii waa $9,000 maxay ahayd 108,000 sanadkii masaajidda budgetkooda in masaajidka especially markaan masaajidka annaga gadanay oo dhulkii aan leenahay inuu masaajidka qorshe ahaan socdo oo biilasha iska bixiyo dadka u khidmeynaya dadka qaarkood boardka majority dadka ka shaqeeya waa boardka waaye ilaa 7 ilaa 9 ilaa 5 intay yihiin waa volunteer kuwa lacag lama siiyo waa volunteer waa board volunteer ah oo si mutadawacnimo ah u shaqeynaya laakiin qofka directorka ah imaamka oo mudan in maaragtay lacagaha hadda masaajidka imaamyada lagu siiyo oo aad u liita in kor loo qaado ayay arrintan keenaysaa oo dhaqaalaha imaamka aad loo tashjiiciyo maxay ahayd imaamada masaajidda kale xataa medical baa la siiyaa imaamyadeena meesha waa ku rafaadsan yihiin qofka masaajidka nadiifinaya maaragtay qofka masaajidka waardiyenaya dad kooban oo masaajidka u khidmeeya oo mushaar la siiyo si iyo biilasha masaajidka si loo daboolo 108,000 ayaad 300 oo member ayaad soo xaraysay masaajidka mar dambe inta jimco la istaago lama dhahayo war yaa wax bixinaya ha ka yaabin marka dadkaas memberska ah oo $1 a day bixinaya maxay marka awooday leeyihiin okay waxaa joogsanaysa marka tuunkii ahaa masaajidka dadka noo maamulaya boardka noo maamulaya meelahana laga soo qabtay maxay ahayd waxaa lagu doortay kana lagu doortay maxay ahayd way iska joogayaan ma tegayaan waxaas dhan ay joogsanaya waa system ay ku shaqeeyaan masaajidda kale wax cusub oo aniga idin keenay ma ah dadkuna waa og yihiin badankiis markii intaa la sameeyo waxaa imaanaysa marka baadhigaa weyn oo qaab ahaan sida baarlamaanka ah ayaa waxaa iska soo sharaxaya qof allaale qofkii raba inuu masaajidka boardka trustiga noqdo 2 sano soo socota inuu noqdo boardka meeshaas iska soo sharaxaya soo haddaadan member ahayn isma soo sharaxi kartid ma dhihi kartid waxaan rabaa inaan 2 sano soo socdo anoo aqoontaa leh xirfadaa leh inaan masaajidkii u khidmeeyo isbeddelku muxuu faa'iido leeyahay isbeddelku wuxuu faa'iido leeyahay meesha waxaa imaanaya fikir cusub waxaa imaanaya dhaqdhaqaaq cusub waxaa imaanaya isla xisaabtan marka baadhigan weyn oo memberska ah ayay dadka iska soo sharaxayaan kadib waxaa dhacaya doorasho inta is soo sharaxday 20 qof
dadka dhan isma soo wada sharaxayaan howsha waa volunteer 7 qof ama 9 qof boardka loo magacaabayo waa volunteer markay is soo sharaxaan oo imaadaan waa inay members yihiin 2 sano la soo dhaafana ay paid yihiin hadduu member yahay uu registeraysan yahay inuu member yahay laakiin uusan bixin lacagtii membershipka ninkaa isma soo sharaxi karo waxaa leeyahay saaxiib iska fariiso ama membershipka bixi masaajidkii dhaqaalihiisii iyo wixii systemka uu ku soconayay dhan ayaa kula fadhiya marka iska soo bixi si aad musharax u noqoto marka qofku markuu is soo sharaxo baadhigii weynaa ee 300 ahaa waa la iclaaminaya waa loo yeeraya masaajidka la imaanaya qof walba wuxuu soo bandhigaya masaajidka wuxuu ku soo kordhinayo dhalinyarada maxaa u qabanaysaa hooyooyinka maxaa u qabanaysaa maxaad aqoon leedahay maxaad khibrad leedahay soo gudbi iska soo fariisan meesha dadkaa dooranaya markaas habeenkaas 7 qofaa la dooranayaa si official ah ayaa 7 qof 2 sano soo socota masaajidka loogu ogaanaya shacabkii markaa doorashada sameeyey guryahooda iyo masaajidka iska imaanayaan korkaasay masaajidka kala soconayaan 7 qof waxaa la siinayaa 30 casho 30 casho gudahood waa inay ku doortaan executive hadalkay isfaacu dhageysta 30 casho kadib waa inay executive 7 qof doortaan executive-ka banaanka ma laga soo bixinaa maya waa la dhijinaa waxaa la rabaa qualification inuu aqoon intaa la eg leeyahay inuu luqadda yaqaano luqadda ingiriiska yaqaano luqadda soomaaliga yaqaano luqadda carabiga yaqaano wixii qualification la isla afgarto oo la qoro waxaas dhan oo aan sheegayana waxay ku qoran yihiin dastuurka ama baylooga markaa masaajidka u degan masaajideenna haddana dastuurka u degan you don't want inaa akhriso waa la qariyaaba lama arkaba halkaasaa lagu wataa laakiin waa soo bandhigi doonaa dastuurka masaajidada aan helno waa soo bandhigi doonaa insha allahu tacaala si aad u akhrisato dastuurka hadda masaajidda ka jira keliya waa members waxaa ka ah xubnaha boardka ayaa members ka ah waxaasna wax aqli ah ma aha waa lagu soo mooday laakiin hadda waa xilligii laga tallaabsan lahaa arrintaas si masaajidka uu noqdo qori isku dhiib oo dadka hadda jooga ama jiilka hadda jooga ee annagoo kale ay ka weynaanay si ay dhalinyarada naga dambaysa ay masaajidii ula wareegaan uusan masaajidkii noqon meel hal qolo uun iska fadhida hadalkaas waa idin dhacay soo maa 7 qof waxaa la siinayaa ee la doortay waxaa lagu magacaaba board of directors ku magacaabo board of trustees ku magacaabo waxaa doonta ku magacaabo waa volunteers ayagaa iskeenay ayagaa raba inay ummadda u khidmeeyaan oo fikir cusub iyo ra'yi cusub kusoo kordhiyaan 7 qof waxaa la siinayaa 30 maalmood 30 maalmood waxay ku soo dooranayaan oo ku magacaabayaan qof paid ah oo executive director ah oo masaajidka daily work ka qabta shaqada maalinlaha ah ka shaqeeya waa la soo dhejinaya qofkaas si transparent ah waxaa soo buuxin kara oo booskaas soo raadin kara keliya ayadoo mushaarkiisa la sheegayo howsha uu qabanayo la sheegayo waxaa soo buuxin kara oo soo raadin kara keliya waa qof member ah paid member haddaadan paid member ahayn saaxiib waxba applicationkaaga ha soo lugooni markii qofkaas la doorto 7 qof ay doortaan asagii baa waxaa loo qabanayaa 30 maalmood inuu soo magacaabo 4 xubnood oo volunteer ah 4 xubnood banaanka may ka imaanayn maya memberska laga soo dooranaya kuwe paid memberska marka laga soo dooranayo 4taas volunteerka ah mid wuxuu noqonayaa maxay ahayd arrimaha haweenka mid wuxuu noqonayaa arrimaha dhalinyarada mid arrimaha maaliyadda iyo dhaqaalaha midna arrimaha bulshada wax sidaas oo kale ah waa la bedeli karaa waxba dhibaato ma leh laakiin qaabka masaajidda kale ay u dhisan yihiin ayaan aniga soo guuriyey oon rabaa inaan annagana u dhaqaaqno qaabka noocaas ah si aan uga baxno mashaakilaadkan tirada badan ee soo noqday ee masaajidda looga hadlayo oo mar walba laga yaabo qofkii ka hadlaba in afka la goosanayo ninka directorka ah markuu 4 qof soo magacaabo 4 xubno uu ka soo magacaabo ka soo doorto bulshadii memberska ahayd saaxiibow marka adi haddaadan member ahayn oo aadan paid member ahayn
masaajidka ciyaarta waa ka daynaysaa, waa iska fariisanaysaa, waa kusoo tukanaysaa, howshaan socota adiga kuma qusayso. maxaa rabtaa inaad kasoo qayb qaadato, then markaas insha allahu tacaala paid member noqo oo masaajidka iyo culimmada bareeg si aan mar dambe jimcad dambe lagu soo dul istaagin oo lagu weydiinin masaajidka lacag ilaa masaajidka markaa waa masaajid stable ah oo dhaqaale ahaan degay oo xasilay. masaajidada kalena sidaasay ku xasilan yihiin oo aada u arkin in jimco walba la taagan yahay. markii dhaqaalaha intaa uu marayo 4 xubnood directorka uu soo magacaabay waxaa u approve garaynaya oo ogolaansho siinaya oo hal ugu ogolaanaya waxaa weeye boardkii directorska ahaa ee 7 ama 9 ahaa xubnood ayaa u ogolaanaya hal qof kasta uu keeno. markuu keeno qualificationkiisa iyo sida uu yahay markaasaa loo ogolaanaya. 5 qof marka directorka iyo 4 qof ayaa 2 sano soo socota masaajidkii howshiisa maalinlaha ah lagu ogaanaya. marka maxaa meesha yimid? waxaa yimid isla xisaabtan. kor ka soo bilow. halkaa kore waxaa noo fadhiya sheeqii ama imaamkii masaajidka markaa joogay oo halkaa fadhiya oo diintii iyo ma aragtay culimanimadii iyo ixtiraamkii noo ilaalinayo oo maamulkii aan ku jirin, laakiin xaggaa kore masaajidkii khidmadiisii iyo xaggii diinta iyo arrimihii diinta iyo waxaa wada asagoo si ma aragtay joogto ah ula shaqaynaya ninka markaa directorka ah ee lasoo magacaabay. waxaa kaloo jooga shacabkii dadweynaha ee memberska ahaa oo 7 qof ay soo doorteen ee hewsha ku aamineen. 7 qof ayay kor kala soconayaan, ayaga 7daas qof ay mas-uul ka yihiin. 7 qofna waxay mas-uul ka sii yihiin directorkana wuxuu mas-uul ka sii yahay 4 qof ee la shaqaynaysa iyo dhammaan shaqaalaha masaajidka ka shaqaynaya ee ma aragtay howlaha kala duwan masaajidka u qabanaya. waxaa laga yaabaa dadka inay la yaabaan war meeshu waa masaajide sidee waxaanoo dhan ma aragtay uga suurtagelayaan. masaajid sideedaba cid qaraabo ka raadinaysa ma laha, cid lacag ka raadinaysa ma laha, cid waxaa badatay masaajidka waa lagu qaraabtaa, masaajidka waa lagu shaqaystaa, waxaas waxba kama jiraan. dadka masaajidka jooga hadalkayga waa ku furay, dadka masaajidda ka shaqeeya way ku dhib qabaan. qofka hadda masaajidka beyga lagu siinayo bey aad u liitaa la siiyaa, kasoo bilow imaamka, qofka directorka ah, qofka securityga ah, qofka masaajidka nadiifinaya, beyga la siiyo waa bey aad u liita. qofkan wuxuu heli karaa inuu bannaanka u baxo uu soo shaqaysto, laakiin xoogaa barakada yaroo khayrka ah oo qofka inta yaroo masaajidka laga siiyo ayaa ilaahay u barakeynaya. laakiin maadaama annaga aan nahay dadka masaajidka dadka ka shaqeeya bay garanaya system iyo nidaam inaan samaysano Soomaali maxamedey waa laga maarmaan. arrintan waxaa laga yaabaa in laygu dhibsado, arrintan waxaa laga yaabaa in dad badan ay ugu dhibsadaan, waxaa laga yaabaa dad badan inay dhahaan war maxaa masaajidda u dul taagan tahay. waxaan usoo noqonayaa arrinta caawa aadka loo sugaayey oo ah masaajidkeenna Abubakar magaaladeenna Takwila iyo mashaariic kale oo laga yaabo inay hadda soo socdaan. sideedana ummadda waxyaabaha ay lacagta ku bixiso inay dhahdo war aniga meeshaan lacag baan ku bixiyey, xisaabtan baan u baahanahay, waxaan rabaa inaan ogaado wax ka socda. ceeb ma aha walaalayaalow, ceeb ha u arkina, qaladna ha u arkina. fikirkayga inaad qaadataanna qasab ma aha, hadalkaygan ku furfuray. qofkii raba inuu ka hadlo iga daba hadlo wuu iga daba hadli karaa, no hard feeling. wax haba yaraatee qalbiga lasugu qaadaya ma jirto. waqtiyo waa soo marnay oo xaalado adag la soo maray oo masaajidka qof ka hadlo la xagin jiray, waxaas waa dhammaadeen. waxa keliya waxaa waaye war maamulka naga hadlaysan aan iska toosinno, sidee aan ka baxno meesha hadda aan joogno, meesha hadda aan joogno aan ka dhaqaaqno oo meel ka fiican aan aadno. waa intaas. hooyooyinkii masaajidda waa ka yaaceen. aniga intaan ogahay masaajidkeenna Abubakar seetalan ka hadlaya, hooyooyinka waa ka yaaceen. dhalinyaradii iska dah, brogram dhalinyaro oo rasmi ah oo ka socda masaajidka male. masaajidka waxaa laga yaabaa walaalaha jooga inay isleeyihiin wax sameeya,
oo wax bedela laakiin waxayse wax u samayn karin oo wax u bedeli karin oo horumar u gaari karin dhaqaale xumo haysa waad la yaabaysaan 2 jimco ka hor ahayd markuu imaamka istaagayay uu dhahayay biilkii masaajidka waa loo baahan yahay 10 kun loo baahan yahay yaa maaragtay bilaabaya ilaahay khayr hadan siiyo marka haddii biilka masaajidka iyo korontada masaajidka maanta dhan aan ku wareeganayno wax kasta iyo qorshe kasta iyo program kasta oo la sameeyana wuxuu u baahan yahay dhaqaalahana sida lagu heli lahaa waa idii iftiimiye waa lacag yar oo dadka aan waxba ka dhimaynin shacabkana masaajidka kalsooni badan ay ku qaadayaan tuhunka iyo rafaadka iyo xanta iyo iska dawareegana looga bixi karo insha Allah ta'ala waxa laga yaabaa culimo badan inay fikirkaas ka soo horjeedaan ayagoo xeerinayo ama laga yaabo in masaajidka runtii caawo wax la qarinayo malaha in masaajidka ama masaajidda Soomaalidu maamusho inay qolo gaar ah ama xisbi gaar ah oo masaajidku leeyahay ama u xiran yahay ama u isxijiyo arintaas sax ma ah masaajidka Ilaah baa iska leh ummadda dhan ka dhaxeeya ummadda dhan ayuu ka dhaxeeya marka masaajidka Ilaahay cidna uma xirnaanayo mana laga aamusnaan doono shacabkow baraaruga hooyooyinka dumarka baraaruga waa in aan ka hadalno waa inaan ka dhiidhino waa in uu isbeddel imaado isbeddelka caawa videogan wuxuu bilaaw u yahay isbeddel door haddaad doonto diid laakiin isbeddelku wuu soo socdaa wuxuuna ka bilaaban doonaa magaalada Seattle iyo masjidka Abubakar ee ku yaala Takwila iyo masaajidda kale waxaa hadda qofkii doona uu fiirin karaa masaajidka Abubakar Takwila wuxuu masaajidda kale xoogaa yar ku dhaamaa ragga jooga xoogaa qabaa'iladoodu waa kala duwan yihiin caawa waxba lama qarinayo laakiin waxaa jira 2 masaajid kale mid hadduu soo socdaa magaalada Renton ka soo socdaa hal qabiil boodhka dhan waa hal qabiil waay masaajid kale westigu ku yaalaa boodhka dhan waa hal qabiil waa soo baari kartaan aniga magac ma sheegaayo laakiin waa soo baari kartaan markaan ka hadlayo masaajidda Soomaalida maamusho ma aha kaliya magaalada Seattle waxaan ka hadlayaa masaajidda waqooyiga America oo dhan waa inaan ku dhaqaaqno isbeddelkii la sugayay ee loo baahnaa ee ahaa in xubno la sameeyo members dastuurka noo degan ama dastuurka masaajidda u qoran waa dastuur runtii lagu soo mooday laakiin hadda aanan ummadan u ahayn maslaxo sida aniga fikirkayga maslaxo uma aha masaajidka Abubakar aan soo noqdo magaalada Seattle ama Takwila ku yaala runtii rag baa jooga akhyaar ah aan wada saaxiibnahay waxaan leeyahay arintan personal ma aha laakiin waxaan ka hadlayo waa maamulka iyo qaabka uu dhisan yahay masaajidka Abubakar Takwila imaamka Sheekh Axmed Nuur qayb ayuu ka yahay boardka qayb uu ka yahay waxaan wax qarsoon ma aha website-ka corporation-ka Olympia waa gali kartaa masaajidka waxaa ku soo kordhay arrimo badan oo sanadihii hore aan la arki jirin oo qarsoon oo aan runtii si cad ummadda wax loogu sharaxaynin si cad ummadda wax loogu sheegaynin laakiin lama yaabayo walaalaha jooga sababtoo ah waa dhaqan soo jireen ah ayuu ahaa arinta ayada ah waa dhaqan soo jireen ah in shacabka wax laga qariyo laakiin dhaqankaas ninkii ku jiri jiray ee qayb ka ahaa ayaa caawa bannaanka soo dhigay oo leh war dhaqankaas waa ku soo moonday laakiin walaalayaalow waa la gaaray waqtigii laga baxayay facility-ga masaajidka Abubakar Takwila aniga waxaan ka mid ahay raggii aasasayaasha ama qayb ka ahaa runtii masaajidkan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala cid walba oo maal ku bixisay waqti gelisay maxay ahayd fikir gelisay maxay ahayd u duceysay
maxay ahayd ilaahay subxaanahu watacaala ajir ha ka siiyo waa ilaaha kulley meel u dhigaayo taas laakiin masaajidka waxaa lagu gaday $3 milyan waxaa loo gaday guryo badan ilaa 3 guri oo masaajidka ku hareeraysan waxaa socda mashruuc kale oo masaajidka dhismaha ka soo horjeeda oo hotel ahaa inay gadatay shirkad Forterra la yiraahdo oo rabta inay community-ga ku hormariso laakiin community-ga la hormarinayo ma community-ga ma 4 nin oo 5 nin oo 7 nin oo masaajidka ku qoran miya mise waa bulshada Soomaaliyeed ee masaajidka dhisatay maxayse ka og yihiin arrinta ayada ah zero waxba lagama oga masaajidkii facility-giisa guriyihii masaajidka guryo ka mid ah in rag masaajidka boorkiisa ka mid ah ee si khaas ah community uga furtaan ayagoo dhahaya community markaan dhahayo waa community-da aan ka soo hadlay ee dowladda lacagta ka doonta community guryaha masaajid ka mid ah in laga furo ayadoo masaajidkii uu qaban karo howshaas ayada ah community service-ka masaajidkii qaban kara asagoo dhaqaale meel kale u raadsan ayuu qaban karaa laakiin dhismihii masaajidka in community lagu furo oo community-gaana la dhaho masaajidku hoos imaanaya ayadoo community-ga ama hay-adda ay tahay entity runtii ka madax bannaan masaajidka totally 100% waa ka madax bannaan tahay waxay leedahay tax ID gooni ah conflict of interest masaajidkii qayb ka tahay leeyahay rag boardki masaajidka ka mid ah ayaa xaggana ku jira waxyaabaha u baahan in la iftiimiyo mashruuca Forterra halkuu maraya ummadda maxaa looga qarinayaa maxaa loola qaybsan waayey waa arrimaha u baahan in laga hadlo caawa keliya videogan kuma soo koobayo mashruucan isbedel doonka ah ee masaajidda looga hadlaayo wuu socon doonaa ummadda waqtigii la marin habaabinayay oo ma aragtay indhaha la qabanayay shacabka waxay u kala baxaan qaarna waa caamo dhaga fudud waxaa laga yaabaa hadda aniga meelahaas markay u dhahaan waniba masaajidka maxaa ku daba dhigay dadna caawa dhan waxa aan ka hadlayay oo aan taabanayay iyo meesha aan u socdo way fahmayaan dadka dhahaya marka masaajidka ka daa ciyaarta iyo masaajidka foodada ka daa iyo masaajidka ma aragtay ha ka hadlin iyo dadka sidaa dhahaya waxaan gelinayaa category-ga la yiraahdo caamo dhaga fudud marka walaalo haddaada adiga fahmaynin oo horumarka iyo waxa masaajidda aan la doonayno adiga aysan kuu muuqan waa okay wax dhibaato ah ma leh insha allahu tacaala markaad soo baraarugto umbaad nala soo qabsan doontaa insha allahu tacaala baraarugii wuu yimid bulshadana way kacday bulshadu way baraarugsan tahay insha allahu tacaala waxa loo socdo masaajidka ma aha waxa loo socdo waa maamulka iyo nidaamka iyo systemka inaan toosino insha allahu tacaala waxaan u dirayaa fariin maamulada masaajidda Soomaaliyeed kulli culimadu waa ogahay say badan kuma laha hadal badan kuma laha warkoodana iyo inay isbedello u dhacana waxaa laga yaabaa inaysan saameyn badan ku lahayn laakiin in baaqa aan u diray waxaa weeye in masaajidda ummadda loo furo shacabku ay qayb ka noqdaan ragga culamaa u diinka dhalinyarada haweenka kulli in masaajidda qayb laga noqdo transparency la caddeeyo masaajidka waa xaruntii ummadda masaajidka waqooyiga America waa dowladdii ummadda qurba joogta ah ama nac ama haneen masaajidka waa xarunta dadka laga hago waa meesha aan wax ka qabsan karno waa meesha aan wax ka toosin karno waa meesha aan dhalinteenna uga badbaadin karno xabsiyada waa meesha gabdhaheenna aan ku soo aruursan karno ma aha meesha inay noqoto meel laga kala cararo
oo qofkii ka hadlana afka la goosto war ummaday hadla oo masaajidda ka hadla wax dhibaataa ma leh anaa idin furay albaabka hala hadlo albaabka waa furan yahay boorarka hadda jooga masaajidda waxaan u dirayaa baaq arrintan way soconaysaa petitionaan bilaabaynaa insha allahu tacaala petitions shacabka ay saangarayn doonaan oo isbeddel doon ah marka waxaan idin leenahay isbeddelka qayb ka qaata haddaa noo haysaan wax ka beddelan oo fiican oo ummadda horumar gaarsiinaya oo shacabka ka saaraya tuhumka iyo isqabsiga ka saaraya oo dowladnimada iyo maamulka masaajidda shacabka ku soo celinaya oo kan ka duwan haddaa noo haysaan oo masaajidda kale ay ku aflaxeen noo keena walaalayaal waa qaadanayna noo keena laakiin hadda qaabka iyo nidaamka aad ku shaqaynaysaan waa qaab lagu soo shaqeeyey maasha allah jazaakum allahu khayr intii masaajidka wax u qabatay waan u duceynay ilaahay miisaanka idiin saaro laakiin ogow masaajidda waa in aan gaarsiino system ama qaab 2 sano mar labaadaa lagu doortay 2 sano kala joogtay 4 sano masaajidka u khidmaysay saaxiibo hore u soco ka leexo ummad kale oo ka aqli badan ka aqoon badan ka karti badan baa joogta uga leexo insha allahu tacaala haddii kale waxaa imaanaysa in kacdoonkii masaajidda uu bilowdo ayadoon masaajidka dhibaato loo geysanayn laakiin qof walba hadda magaalada Seattle masjidkeena Abubakar haddaan weydiisid shacabka donorska ah lacagaha ugu badan bixiya yaa masaajidka ku maamula ma garanayaan raggiina masaajidda maamula banaanka iskeena dadka soo hor istaaga haddaa rabtaan maxay ahayd maamulka iyo nidaamka iyo systemka maxay ahayd isbeddel inuu ku imaado hormuud ka noqda haddii hormuud ka noqon shacabkii waa kacay shacabkina waa soo socdaa ayagaana isbeddelka keenayo shacabka marka waxaan leeyahay waxaa laga yaabaa dadka inay leeyihiin awood ma lihin awood waa leedahay masaajidka adiga ayaa fangareeya lacagta adaa bixiya awood waxaad leedahay lacagta aad bixiso inaad dhahdo hold on lacagtan aan bixinayo waxaan rabaa isbeddel inay keento waxaan rabaa dhalinteenna dhibaataysan in wax loogu qabto waxaan rabaa programs in la abuuro ma aha inuu qof masaajidka dhinaciisii community iyo inuu ka furto masaajidka buildingkiisi uu lahaa oo non profitka ahaa oo waqafka ahaa inuu community qof boardka ka tirsan ka furto corruption ka weyn aniga ma garanayo saaxiib yaal raalli ahaada caawa waxaan malaynayaa waa ku fogaaday insha allahu tacaala waa arrin muddo la sugaayey waa arrin muddo u baahneed in laga hadlo isbeddelkana wuu soconayaa insha allahu tacaala qayb ka soo noqo get on board qayb ka soo noqo oo soo raac insha allahu tacaala walaalaha masaajidka jooga waxaan leenahay idinka hogaamiya isbeddelka keena hogaamiya maxay ahayd doorashada iyo shacabka in ma aragtay isbeddelka ugu imaado idinka qayb ka noqda hogaamiya taariikh ka taga live history laakiin haddaa is adkaysaan isbeddelkii waa soo socdaa wuuna imaanayaa insha allahu tacaala awooddana shacabka ayay ku soo noqonaysaa insha allahu tacaala Seattle ayay ka bilaabanaysaa dabeeshu Seattle ay ka bilaabanaysaa insha allahu tacaala ilaa iyo westiga ilaa eastigana way aadi doontaa hadduu ilaah yiraahdo culimadeeda sharafta leh waan jeclahay ilaah ha noo daayo ilaah ha noo xifdiyo biidni illaahi tacaala culimada ixtiraamkoodana masaajidda haddii shacabka Soomaaliyeed waa dad diin jecel haddaanan diin jeclaan lahayn masaajidda aan dhisannay oo ilaa 30 iyo ka badan gaaraya oo Soomaalida hoos imaada ama maamulka Soomaalida hoos imaada ma aanan gaarneen heerkan hadda aan joogno iyo inaan yeelanno dhulal iyo masaajido annaga aan iibsanay oo cidna aysan ugu haysan maxaa yeelay insha allahu tacaala waxaa keenay diin jecelkeenna culimadeenna waan jecelnahay
awoodii iyo sharaftii iyo ixtiraamkii iyo karaamadii culummada ee lahaayeenna waa soo celinaynaa insha allahu tacaala haddaan nahay shacabka. kani waa kacdoon shacab. iskama hadlin aniga si individual uma hadlin. waxaa hadalkan iga keenay muddo 4 sano ah markaan maaragtay ka maqnaa masaajidda iyo maaragtay inaan maamulkooda ka mid noqdo ayaa waxaan sameeyey daraasad aad u tiro badan iyo inaan ummadda waraysto hadduu ilaah yiraahdo. marka dabeeshan waxay ka bilaabatay Seattle biidni illaahi tacaala. maxay ahayd ilaa iyo Minneapolis ilaa iyo Eastiga ilaa meel walbana way socon doontaa hadduu ilaah yiraahdo. taariikhda ayaana qoraysa isbeddelkan iyo qaabku u dhaco biidni illaahi tacaala. cid allaale ciddii isbeddelkan doonaysa inay qayb ka noqoto waxaa u baahan tahay inaad ka hadasho. waxaa u baahan tahay runtii caawa aniga waxay la tahay videogan maadaama aan si u hadlay niyad wanaag ah, si clear ah, si maaragtay cad oo aanan cidna uga xishoonin, cidna uga gaban. ilaahay maaragtay subxaanahu watacaalana uu xisaabin doono haddii hadalkayga uu maaragtay fidno iyo dhibaato ay ku jirto. laakiin waxaan rabaa oo halkan caawo leeyahay xan badan caawo halkaani ku istaagtay. no more xan. war ragga masaajidda jooga lidama xamanayo mar dambe. warka waa cad yahay. isbeddelay ummadda u baahan tahay. isbeddelka qayb ka qaata. isbeddelka sameeya. shacabka members ha laga dhigo si masaajidda kale ee nala midka ah ee waddanka noogu soo horreeyey naga dhaqaalo badan programska ay sameeyaan iyo waxa ka kala socda masaajidda qaarkood markaad tagtid waa yaabaysaa. annagana waxaan u muuqanaa waxaan nahay muslimka ugu badan runtii, ugu awood badan, ugu caqiido fiican, ugu waxtar badan, ugu muuqash xagga islaamka maaragtay aad iyo aad masaajidda qaarkood xataa jameecadooda maaragtay masaajiddeena ma gaaran. laakiin maxaa annaga dib noo dhigay? waxa dib noo dhigay waa qabyaalad iyo qurun iyo xishood la kala xishoonayo oo la leeyahay haddii aa hadashidniyaho meeshu waa masaajidniyaho yaa laga hadlin masaajidka ilaahay yaa gacanta lagu taagin. war masaajidka ilaahay cidna ma haysato. ciddii isku dayda inay masaajidka ilaahay dhibaato u geysato kulligeen meelaa uga soo wada jeesanaynaa. laakiin ciddii rabta inay wax ku kordhiso oo maaragtay wax ka beddesho oo wax hagaajiso in la taageero, in la garab istaago, la gacan qabto. qofkii qaldanna la qabto. haddaan qaldanahay iqabta. haddaan wax qaldan idii akhriya caaw iqabta kulligiin. insha allahu tacaala dadka su'aalay soo weydiinayeen su'aalahaasaan ka jawaabayaa. waxaa laga yaabaa dadka inay gadaal ka soo galeen oo videoga ay gadaal uga imaadeen. laakiin waxaan idin leeyahay insha allahu tacaala videoga bilaawa kasoo fiirsada. waxaan rajaynayaa in su'aalo badan oo aad weydiin laheedeen in videoga haddaad soo bilaabato insha allahu tacaala aad wax badan maaragtay ka dharagsan doonto biidni illaahi tacaala. maasha allah tabaaraka allah. rag badan ayaan aaminsanahay oo akhyaar ah oo maaragtay culamaa udiin ah, ehludiin ah, iyo dumar badan oo akhyaar ah, ehludiin ah, culamaa diin ah in ay maaragtay arrintan igu waafaqsan yihiin. arkaan fikirkan inuu yahay fikir saliim ah oo socon kara oo isbeddelku wuu dhib badan yahay. waxaa laga yaabaa caawo in dad badan ay qoraan OJ ninkii ahaa jak masaajiddu fidno ku wadaa. maxay ahayd waagi uu masaajidka joogay muxuu uga hadli waayey? waagi masaajidka aan joogay si hoosaan uga hadalnay. si hoos dee waa shaqayn weyse. marka in bannaanka lasoo dhigo oo laga hadlo oo la caddeeyo runtii aniga personally masaajidda maxay ahayd meel weyn iga yaalaan. masaajidda waxaan u hayaa iyo culimmadaba ixtiraam tiro badan. culimmadeydana waxaan ka codsanayaa haddii wax haba yaraatee oo dhacdhaca u iga dhacay ma aragtay inay nafteeda iyo shaydaan ay ka timid. waxaan hagaajiyana ma aragtay xag alle ka timid insha allahu tacaala. waxaan rabnaa mashruucan inaan sii wadno, aan ka sii hadalno. markana waxaan isku dayaa insha allahu tacaala wax yar inaan masajada dhegeysto, aan masajada fiirfiiriyo, wixii aan ka jawaabi karo aan ka jawaabo insha allahu tacaala. rag badan oo akhyaar ah ayaa meesha jooga oo runtii insha allahu tacaala qayb inay ka noqdaan isbeddelkaas raba. waxaa xusid mudan dadka ilaahay
nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu sheegay khayrukum man tacallama alqur'aana wa callamah dadka ugu khayr badan ummadda waa dadka qur-aanka barta dadkana bara annaga waxaan u naqaanaa macallimiinta qur-aanka maasha allah caawo macallimiinta qur-aanka masaajidda waa laga wada cirsaday ama ana taaban u malaynaya waa ka yara booday macallimiinta qur-aankii masaajiddii waa laga wada cirsaday because system iyo nidaam iyo qaab ay ku joogaan ayaana jirin waxaa laga yaabaa macallinka masaajidka jooga ilmaha qur-aanka baraayay oo nabiga calayhi salatu wasallam uu ku sheegay qofka ugu khayr badan ummadda in nin maamulka jooga uu madax la galo ama fikirkiisii fikir ka duwan uu sheego markaa bannaanka la dhigaya marka awoodda tirada badan ee walaalaha masaajidda hadda jooga ay haystaan waxaa u saamaxay oo u oggolaaday waa shacabka aamusan shacabkan aamusan ayaa awooddaa oggolaaday cid kale ma siinin annagaa siinay maadaama annagaa aamusannahay aamusnaantana ma aha doqonnimo ma aha aamusnaanta ma aha waxgarad la'aan ma aha aamusnaanta waxay ahayd xishood in la xishoonayo oo dadka u xishoonayaan ee ixtiraamayaan masaajidka ilaahay laakiin xishoodka waa dhammaaday ma dhaheenne waxaan leenahay aamusnaantii way dhammaatay horaa loo soconayaa insha allahu tacaala isbeddelkiina wuu soconayaa hadduu ilaahay yidhaahdo si cad ayaa loo wada hadlayaa qof allaale qofkii fideogan su-aal ka qaba ama fikirkan su-aal ka qaba ama raba inuu si personaala ila fadhiisto ama ila hadlo waa soo dhoweynaynaa waxaa xusid mudan mashaariic kalea la soo wadaa waxaa jira mashruuc kale oo hadda weyn oo magaalada kusoo socda magaalada Seattle kusoo socda maasha allah mashruuc aad u qurux badan mashruuca quruxda badan haddii qofka intuu baxo dowlad uu lacag ka raadsado sida hore aan usoo sheegay oo communitiyada ah dowladda lacag ka raadsatay nin waxba kaama rabno su-aal kuma weydiinayno ummadda waxaa u qaban karto u khidmee waxaa u qaban karto u qabo farahankaa qaadayna communitya tahay dowladda waxaa ka soo jafataa annaga lacagna ma weydiisid laakiin ummadda haddaad ku soo noqoto oo jeebkeeda aad wax ka weydiiso xaq waxay u leeyihiin inay kula xisaabtamaan xaq waxay u leeyihiin inay wax ku weydiiyaan marka saaxiibo ha dhibsanin ummadda inay wax ku weydiiso ha dhibsanin masaajidka ummaddu ka dhexeeyaa warkayga waa cadyahay soo maah caawo fideogan waxaan rajaynayaa inuu viral noqdo fideogan inuu ummadda wax u taro ummaddu horey u soconaysaa boorarka masaajidkana waxaan ka codsanaynaa intaysan shacabka ayaga u imaanin ama shacabka ay arrintan usoo bandhigin insha allahu tacaala inay ayaga hormuud ka noqdaan ay hogaamiyaan isbeddelka taariikhna ay ka tagaan insha allahu tacaala waa idin ogahay dhib unbaa ku qabtaan dheef kuma qabtaan ani waa idin ogahay personally dhib aa ku qabtaan dheef kuma qabtaan marka dhibka aa ku qabtid maxaa adiga masaajidka isku xijinaysaa masaajidka ilaahay ummaddu ka dhexeeya ummadda horumar la doon hore u soco adduunyadu waa isbedeshay adduunyadu waa isbedeshay qof meel iska joogaya ma jiro waddankeenni haddaad dib u fiirisid waxaan soo marnay waa ognahay maantana waxaa ka socda waa ognahay qofkii meel loo dhiibo saaxiibow isxisaabi 2 4 hore u soco sheekadan waa dhammaatay insha allahu tacaala marka saasaa isku ognahay hadduu ilaahay yidhaahdo ha layga raalli ahaado waa videogii ugu dheeraa insha allahu tacaala oo aan facebook uga hadlo mar labaad iyo mar saddexaad daawadayaasha sharafta leh qiimaha leh waa mahadsantihiin videogii waxaan ku soo gabagabeynayaa caawa dhan waxaan ka hadlayay dadka qayb ka mid ah waxay u fahmi doonaan nin fidno wada nin rabsho wada nin dangaar ah leh nin masaajidda u socda dadka wax garadka ah oo wax fahmaya meeshan u socdo way u caddahay way u muuqataa wayna taageeri doonaan wayna ugu raaci doonaan insha allahu tacaala yaanan personally aniga yaanan wax lay raacan fikirkaygan ka hadlay ragga masaajidda joogana iyo arrintan personal u qaadan waa waxa dhaca waa xaqiiq wey
haddaa masaajid joogto aad boor ka tahay cabdiraxmaan oje wuu kaa hadlay adig kaama hadlin masaajidka iyo boorka iyo systemka iyo nidaamka ka hadlay adi shakhsiyan kuma weerarin okay marka aniga shakhsiyan ha ii soo weerarin saaxiib qofkii business private leh businesskiisa privateka lagama geli karo qofkii business privatekiisa kugu imaado waa iska celinaysaa oo weerarku kugu soo qaada laakiin haddaa meel public joogtid waa laga hadlayaa maamulkaaga laga hadlayaa transparencygaaga laga hadlayaa warka waa in la caddeeyo waa inaan hore u soconno insha allahu tacaala torchka ama maxay ahayd calanka waa inaan u dhiibno next generationka naga dambeeya masaajidda haba yaraatee shaqo kuma laha marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in isbedel doonku u socdo isbedelkaana uu dhaco biidni illahi tacaala wax badanna aan ummadda kusoo kordhino hadduu ilaah yiraahdo maxay ahayd barnaamijyadan hadda oo soomaalida ay aadka uga hadlaan aad baan uga helaa runtii in dadka soomaaliyeed ay horumar gaareen oo miidiyada mar walba maaragtay ay noqotay meel maaragtay khayrka iyo shartaba loo adeegsado waxaan rajaynayaa videogan inuu khayr noqdo biidni illahi tacaala uusan noqon shar maxay ahayd uu noqdo maaragtay in shacabka uu u baahan yahay in wax loo iftiimiyo xantana ay joogsato meel walba aan joognana insha allahu tacaala waxaan horumar ku gaaraynaa in shacabka uu awoodda yeesho ma aha shakhsiyaad inay awood yeeshaan shacabka inay awood yeeshaan shacabku markuu isku imaado oo wax wada qabsado awood ayuu leeyahay masaajidda waxaan ku dhisannay awood shacab isku timid hooyooyin baa dahabka u fura hooyooyinka dahabka u fura caawa masaajidda haddaa kala hadashid waxay ku leeyihin naga daa masaajidkaaseeto maxay ahayd waxba kuma haysano maxaa dhacay tala lagama geliyo qayb kama aha hooyooyinka memberska ka mid noqda isoo qora lacag badnana ladinkama rabo $30 le ladinka rabaa bishi insha allahu tacaala members ka mid noqda aniga waxaan diyaar u ahay inaan systemkaas iyo nidaamkaas cusub ee hirgeli doona inaan qayb ka noqdo oo insha allahu tacaala aan qayb ka noqdo ma aha inaan maaragtay masaajidii qayb ka noqdo maamulkooda iskuma soo sharaxayo uma soo socdo ma raba inaan ka mid noqdo memberska guud ee lacagta bixinaya ee sadaqada ka qayb qaadanaya iyo dhismaha cusub iyo nidaamka cusub iyo sida loo dhisi lahaa iyo waqti inaan geliyo on time ka maaragtay geliyo ayaan diyaar u ahay insha allahu tacaala ciddii ka qayb galaysana hadduu ilaah yiraahdo petitionka wuu bilaabanayaa biidni illahi tacaala walaalaha masaajidana waxaan la yeelan doonaa kulamo waxaan leenahay kasoo qayb qaata qayb ka noqda comeon qayb ka noqda meesha maaragtay isbedelka iyo qaabka la rabo in wax loo sameeyo kasoo mid noqda insha allahu tacaala haddii system kale oo ka duwan kan oo shacabka awoodda siinaya keena isagana shacabka awoodda iska leh soo ma yaa diidan shacabka inuu awood leeyahay shacabka awoodda iska leh aniga ujeedkayga meeshan u socdo waxaa waaye dad khaas ah masaajidka uma xirnaan karo shacabka waa inay cod ku yeeshaan shacabka oo idinkana cod kuma yeelanaysaan haddiida masaajidka dhaqaalo siinin members ka noqda dhaqaalo siiya dhaqaalo badan ma aha dollar a day laakiin systemka iyo nidaamka masaajidda kale ay ku aflaxeen aan dhisanno waa intaas fariintiyo kooban insha allahu tacaala wax walba oo qalad iga dhacay waa nafteeda iyo shaytaan wixii aan asiibayna ilaahay subxaanahu watacaala ayaa maaragtay waafajiyey khayr badan ayaan idiin rajeynayaa walaalahay inta hadalkayga ku qanacday iyo inta aan ku qancinba kulligan waa idin jeclahay waxaa laga yaabaa dad badan inay igu nacaan hawshan ayada ah dad badan inay igula dagaalaan dad badan inay igu karaahiyeystaan laakiin waxaa ogahay majority of the people in ay igu waafaqi doonaan biidni illahi tacaala but haddaan fikirkayga xortaa ka hadlay walaalow haddaa igu nacdid adigu bay ku dhibaysaa insha allahu tacaala qofka bini aadanka ah aqligiisa yar iyo fikirkiisa uu ka hadli karaa wax dhibaa ma leh
waxaan mar walba u taagnaan doonaa insha allahu tacaala inaan ka hadlo arrimaha bulshada iyo waxa ummadda danta u ah insha allahu tacaala ayadoo aanan cidna uga hebaysanaynin cidna uga gabanaynin biidni illahi tacaala. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.